asalaamu calaykum saaxiibayaal kusoo dhawaada kanaalkan tamariro official waa mar kale muuqaalkeen maanta waxaanu ku sharaxi doonaa filim lagu magacaabo Blocks kaasoo soo baxay 2020 ahna filim sambu ah daawasho wacan bilowga filika waxaanu aragnaa wararka uu sheegaya in magaalada xanuuno aad u halis ka jiraan dhanka kale waxaanu aragnaa Maria oo uga sheekanay gabadhiisa Peachy habkii ay isku barteen hooyadeed laakiin Peachy ayaa u muuqatay inay aad uga xanaaqsan tahay aabaheed sababtoo ah markii ay dhimanayso hooyadeed ma uusan la joogin oo waa u cidleeyay ugu dambeyntiina waxa uu geenayaa jaamacadeeda sidoo kale waxaanu aragnaa arday badan oo ku sugan jaamacadda dhanka kale waxaana la barayaa dhammaan asxaabta Blocks Eric Miles iyo Luke iyagoo ka sheekaysanaya mustaqbalka waxa ay jecel yihiin in yar kadib waxay wada galayaan sawir dhanka kale waxaanu aragnaa Maria kaasoo la hadlaya saaxiibkii balse silmal falan ah nin ayaa gaadhigiisa isku dhigay isagoona raba inuu lacag ka qaato balse Maria ayaa uu ka diidaya ugu dambeynna waxa uu keenaya dhakhtarkii ay Peachy joogtay sidoo kale waxaan aragnaa haweeney taala isbitaalka taas oo la socotay gabadheedii yareed ee Ruby dhanka kale Peachy ayaa u imanaysa bukaanka si ay u daaweyso balse waxay arkaysaa inay ku taala qaniinyo ugu dambeyn gabadhii waa ay dhimanaysaa Peachy ayaa amirsiinaysa waxna u sheegaysa inantii yareed ee ay ka tagtay gabadhii dhiman sidoo kale Maria ayaa waxa uu arkaya gabadhiisii Peachy waxuuna u sheegaya inuu shil soo galay balse Peachy wax jawaabo ma siinayso waana ay ka dhaqaaqaysaa dhanka kale Miles iyo saaxiibkii ayaa waxay soo galayaan qolkii ay taalay gabadhii meydka ahayd balse gabadhii meydka ahayd ayaa si lama filaan ah kusoo kacaysa waxaana ay qaninaysaa Miles saaxiibkii halka Miles uu naftiisa ka badbaadsanayo oo uu cararayo ugu dambeyn gabadhii way soo baxaysaa waxayna wada qaninaysaa dadkii oo dhan halkaas oo cudurku si fudud ku wada faafayo sidoo kale Maria waxa uu arkay dhacdadan aad ayuu naxay wuuna ka baxsaday meeshii sidoo kale dadkii waxa isku dirayaan muuqaaladii ugu dambeyn ardaydii maktabada joogay waa la soo gaaray waana la wada qaninay dadkii oo dhan si fudud ku wada qaadeen sidoo kale Lucas iyo saaxiibadii oo wada fadhiya waxa ku soo dhacaya xabad qabta cudurkii ugu dambeynna waa wada qaninaya halka Lucas oo kaliya ka badbaadayo dhanka kale waxaan aragnaa Peachy oo professorka u sheegaysa in gabadha ay daawan siiyeen balse ay ku fiicnaan weyday sidoo kale Miles ayaa tusaya moolka ardaydii oo dhammaan cudurkii ku faafay dhanka kale kaamirada waxay ka arkeen in qaybta security-ku xataa la wada qaninay oo ay wada qaadeen cudurkaas dhanka kale waxaan aragnaa Maria iyo ninkii dhaawac ah ugu dambeynna waxa uu imanaya Lucas balse waxa la ogaanayaa in ninkan dhaawac ah uu qaniinsan waana uu soo weeraraya ugu dambeynna waa iska celinayaan balse Maria ayaa ogaanaya in ninkan uu ka baqa biyaha ugu dambeynna waa ay ka imanayaan waxaana u soo dhaqaaqaya dhankaasi Peachy saaudaydayaan dhinaca kale waxaan aragnaa saambiyadii oo carray qolka ay ku jirta Peachy professorka iyo Lemus balse ugu dambeyn waa ay ka soo xidhanayaan laakiin waxaa la qaninaya professorka halka uu imanayo Lucas ugu dambeyn waxay ogaanayaan in la qaninay professorka waana ay iska celinayaan ugu dambeynna way ka adkaanayaan professorka kale waxaan aragnaa Maria Ruby iyo waardiyaha oo daawanaya xabada in ay ku wadaan militarigu ardaydii qabtay sambiyaha waxaanu ogaanaynaa in tirada ardayda qabtay sambiyaha ay badan tahay sidoo kale Lucas iyo Peachy waxay dejinayaan qorshe ay kaga baxaan sidoo kale Gayle oo ah madaxweynaha jaamacadda inankiisa ayaa waxaan ogaanaynaa in aabihu uu soo diray helicopter waxaana uu sheegaya saaxiibtiisa wuxuuna ka codsanayaa inay cudur sheegeen balse saaxiibadeed ayaa ay u sii sheegaysaa ugu dambeyn waxa uu ogaanayaa inay sheegtay waxaana ka soo turaya jaranjarta isagoo ku qancinaya dadka inay qaado cudurkii sambiga sidaa darteedna uu dilay kadib ay soo baxeen iyagoo qorsheynaya inay aadaan gudaha isbitaalka jaamacadda dhexdeeda ugu dambeynna marka ay marayaan kiniisadda waxay arkeen in kiniisadda albaabkeeda xidhan yahay kadibna waa ay qaliyeen laakiin nasiib xumo sambiyadii ayaa soo weeraray oo dhawaqa ku soo raacay isla ilbiriqsigii u dambeeyay Maria ayaa ka furaya albaabka kiniisadda waana ay xabadaynayaan sambiyadii ugu dambeyn Peachy waxay la kulmaysaa aabaheed aad ayayna u farxaysa waana ay ku dhagaysaa hadda waxay qorsheynayaan sidii ay uga badbaadi lahaayeen sambiyadan ugana baxsan lahaayeen sidoo kale Gayle ayaa u sheegaya in helicopterka u soo socota kaliya 2 qof qaadis muran iyo istijid dheer kadib waxay ku heshiinayaan inay gaaraan dabaqa ugu sarreeya halkaas oo helicopterka ku soo degayso hadda waxay marayaan xafiiska maamulaha agtiisa Ruby ayaa arkaysa hooyadeed oo sambiya waxayna moodaysaa inay caadi tahay waana u cararaysaa halkaas oo lagu qaninayo intii ay asxaabta ku mashquulsanaayeen Jolie ayaa falin casnimo ku dhaqaaqay wuxuuna ka soo xidhanaya albaabka saaxiibadiisa ayaa ku cadaanaysa waana ay cararayaan waxaana ku soo dhuumanayaan qol ay u badbaadaan oo naftooda u badbaadiyaan dhanka kale Maria ayaa waxa uu soo qaadanaya keytaar waxaana uu garaacaya gabadhiisa halkaas oo ugu heesay wuxuuna ka codsanaya inuu iska cafiyo sababtoo ah hooyadii markii dhimanaysa lama uusan joogin ugu dambeyn waxaa soo dhacaya Sambi halkaas oo uu Maria ku dilayo balse Mario ayaa waxa soo gaaray dhaawac dadkuna waxay doonayaan inay dilaan balse Peachy ayaa ka qabanaysa waxaana ka odhanaysaa waan karigtaleynaa ee aabaha iska daaya waxaana ay go'aansanayaan inay qolkan ku xirxiraan kadibna waa iskaga tegayaan intii ay sii socdeen waxaa la qaninaya Miles wuxuuna ku dhahaya horta iska taga aniga way dhamaatay sidoo kale waardiyaha ayaa odhanaysa horta iska sii socda aniga ayaa Miles ka saaraya sambiyada Peachy Eric iyo Lucas ayaa ugu dambeyn waxay gaarayaan barkada biyaha halkaas oo ay ku badbaadayaan balse sambiyo badan ayaa soo weeraraya waxaana isku tuurayaan biyaha waxayna ogaanayaan in sambiyadu ay ka baqaan biyaha waxa ay sameeyaan ayay garwaayaan balse saaxiibadooda Eric ayaa naftooda u horeysa waxaana u tagaysaa sambiyadii halka Lucas iyo Peachy ay ka baxsanayaan ugu dambeynna waxay gaarayaan dabiq
dabaq ugu sareeyay dhismaha halkaasoo albaab kasoo xiranayaan. Lucas ayaa ka caawinaya in Peach ay korto dhismaha barta u sareysa, balse Lucas ayaa kori kari waaya. Albaabka waxaa soo jabinaya zombiyadii. Ugu dambeynna Lucas wuxuu go'aansanaya inuu badbaadiyo Peach uu dabaqa iska tuuro, halkaasoo dhammaan zombiyadiina ay iska daba tuurayaan dabaqa. Hadda Peach aad ayaa u warsantay sababtoo ah waxay weyday dhammaan saaxiibadeed. Ugu dambeyn waagii ayaa bariyo wax helikabtarna meeshii ma imanayso, balse waxay arkaysaa in qaniya ku taalo welina aanay isbedelin. Cabaar kadib waxay ogaanaysaa inay iska difaaci karto xanuunka. Ugu dambeynna waxa u dhaqaaqaysaa bartii uu joogay aabaheed si ay u ogaato xaaladiisa. Dambeyn Peach waxay gaadhay aabaheed oo caafimaad qaba oo aan isbedelin sababtoo ah waxay haystaan difaac ka sarreeya difaaca fayraska. Hadda waxay qorsheynayaan inay ka baxaan tunnelka hoose jaamacadda. Ugu dambeynna waa ay kasoo baxayaan, waxayna arkayaan in magaalada dhammaan gebigeeduba isbedeshay oo uu fayraska qabsaday. Hadda goobtu waa isbedeshay, waxaana TV-ga laga baahiyay in bahaladu ay ka baqaan biyaha. Ugu dambeynna bahaladii waa la dhameeyay iyadoo loo isticmaalay biyihii. Daawade waxaan soo gaarnay dhammaadka filimka. Waxaan ka codsanayaa inaad subscribe noo saarto haddii aad nagula sii jirtayna like iyo share noo sii taabato. Mahadsanid. Wassalaamu calaykum.